بسم الله سلام الله عليكم أرضاد قيمك إيقايها وعنو هاتن إيا مانتا وحانو إدين سو قدبينينا أما آنو بلابانينا عشركي يقوه الرئيي ألف ماي سيدا آن كورقبنو سوماليدو وحيكو هذا شاه af Soomaali waxaana ay leedahay laba lahjadood oo waaweyn inkastoo lahjadooyin fara badan ay jiraan laakiin lahjadaha adduunka uu aqoonsan yahay Soomaali loo aqoonsan yahay in ay ku hadashaa waa may iyo maxaatri ama may iyo maxaa haddaba bacdama waqtiyadii gumaysiga 1950kii idaacadaha lagu hadli jiray af Soomaali may iyo maxaa labaduba iyo xitaa afafka gumaystayaasha sida Talyaaniga iyo Ingiriiska waqooyi oo markaasi radio kudu ahaa iyo koonfurta oo isaguna ahaa radio Muqdisho ayaana suura gelin ilaa iyo 70kii laga soo gaaro in Soomaalidu ay yeelato far ay isku raacsan tahay in macnaheedu ay wada qorato laakiin sanadii 1972kii ayay timi in la qoro af Soomaaliga lagu qoro lahjada maxaa hayeeshe ee 1950kiina waa ay jiday in alif may uu qornaa laakiinse aysan suura gelin kadib markii dalka uu ka baxay gumaysiga in la qoro ama lagu dhaqbo sababa jira awgood maadaama haddaanu Soomaali nahay aanu wada naqaano aan wada garanayno af Soomaaligeeni lahjadeeni maxaa qoraalkeedu haddana waa inaanu barannaa lahjadeeni may qoraalkeedu kaasoo maantaba aan ku bilaabanayno alif may ardayda sida aan ka warqabno alif may waxa uu leeyahay 28 xarfood oo uu weheliyo hal xaraf oo isagu loo yaqaano shaqal u yaal 29kaasi ayuu ka kooban yahay alif maygu waxaana structure-ka ama qaabaalka uu u dhisan yahay aad ku arkaysaan sida shaashada idinkaga muuqata marka ugu horeysa alif may waxaa loo qaybiyaa laba qaybood oo kala ah shible iyo shagal haddaba si aan wax uga baranno shiblaha ayaa sabuuradda waxa ay nooga muuqan doona shiblaha sida loo qoro shiblahaasoo ka kooban 24 xaraf alif mayga shibluhu waxaa weeye ba pa ta ja ya da fa ra sa sha da ga gha fa da ka la ma na nga wa ha ya nya ardayay sida aad la socotaan ama intiini la socotay haatan waxaanu barannay shible oo loola jeedo shibane kaasoo isagu ah alif mayga xarfihiisii ama xuruuftiisii xarfo ka mid ah waxaa dhici kartaa intiini la socotay ma ahane qaar kale in ay dhaaftay duruustu waxaanu doonaynaa in aan ku celinno dhawaqa si uu idinkaga daadago
aad u dhamhisaan dhawaaqa dhabta ah alifmayga shiblaha shible ba pa ta ja ya da fa ra sa sha da ga ra fa da ka la ma na nga we he ye nya ardayay waxaanu filaynaa in aad ka bogateen ama aad fahamteen haatan alifmay qaybtiisii shible haatanna waxaanu u gudbaynaa shagal oo loola jeedo shaqal sida aan horeba u soo sheegnay alifmaygu waxa uu leeyahay shaqal ahaan 6 shaqal 5 ayaa u caado ah waxaana weheliya oo kan 6aad ah shaqal u yaal oo loo yaqaano shagal anyaal haddaba ardayay si aan wax uga ogaano ama aan wax uga baranno shagal waxaanu sabuuradda idinkugu soo gudbinaynaa shaqal gaab iyo shaqal dheer alifmayga haddaba dhawaqa la socda innagoo ku hormarayna shaqal gaab a e i o u ardayay kuwaasi waa shaqal gaab waxaanu halkan tirinay 5 shaqal waxaanu hore idinkugu sheegnay in alifmaygu shaqaladiisu ay yihiin 6 laakiin tan 6aad macallinku ma uusan sheegine xaggay ku maqan tahay waa su'aal maskaxdiina ku soo laaba kadha laakiin gadaal ayaannu idinkaga xaqabtiri doonnaa ee aan u gudubno marka ugu horraysaa shaqal dheer shaqal dheerku alifmayga uu leeyahay waxaa weeyaan sida tan a e i o u ardayay waxaan filaynaa inaad haatanna aad aragteen shaqal dheeraha ama shaqal dheerka alifmayga uu leeyahay haddaan mar kale aan ku noqonno shaqalka mayga waxaa weeyaan dhawaq ahaan a e i o u shaqal gaab shaqal dheer a
uu haddaba ardayay haatan waxaannu barannay 5 shaqal oo ka mid ah alifmayga waxaana inoo dhiman shaqalkii 6aad oo macallinku uu noo ballan qaaday haddaba shaqalka 6aad waxaa weeyaan oo alifmayga loo yaqaano shagal inyaal sida tan ee shaashadda ka muuqanaysa waa ya si haddii loo dhigo si haddii loo dhigana waa shaqal xarafka kan ee ya-da ah marna waa ya oo waa shible marna waxaa weeye shaqal waa shagal haddaba sideen ku kala gara karnaa marka xarafka kan ee ya uu mathalayo shibane oo loo yaqaano shible iyo marka uu mathalayo shaqal oo loo yaqaano shagal maxaanu ku kala gara karnaa waxaa lagu kala gara karayaa marka uu yahay xarafka kan ya marka uu yahay ya caadi ah oo loo isticmaalayo shibane ahaan shible waxaa weeyaan ya-da intaan la soo gaarin qormada haddii ya-da ka hor qoraal uu soo socday shaqal uu soo galo ya-da intaan la soo gaarin shaqal hadduu ku xigsado sida a e i o u ama a e i o u haddii midkood uu ku soo xigsado gadaal uu ka mara ma ahan hadda u fiirso haddii ya-da qoraalkeeda intaan la soo gaarin dhanka bidix sabuuradda fiiri dhanka bidix uu 5taa shaqal mid ka mid ah shaqal gaab ama shaqal dheer midkood uu soo maro markaasi waa shibane waxaana loo aqrinayaa ya alifmayga xarafkaasi haddii ya-da intaan la soo gaarin shibane ama shible waxa loo yaqaano intaan ya-da la soo gaarin hadduu shible meesha uu soo galo uu ku xigsado ya-da macnihi gadaal ka mara ma ahan ya-da intaan la soo gaarin haddii shible ama shibane uu ku kabmo markaasi waxaa loo akhrinayaa waa dhawaaqaasi cabaadka u eg dhawaqaas oo ku jira afka lahjadda mayga af soomaaliga lahjadda mayga ayaa laga helaa laakiin lahjadda maxaaga lagama helo dhawaqaasi waxa uu gaar u yahay dadka ku hadlaya af soomaaliga lahjadda mayga qofka yaqaanaa yaqaana qofka aan garanayna ha tijaabiyo bal in dhawaqaasi uu ku jiro iyo in kale waxaana ka mid ah haddii ya-da ay ka soo hormaraan shibanayaasha waxaa ka mid ah sida ba hadday ba'du ya-da intaan la soo gaarin meesha ay timaaddo dhawaqaasi wuxuu noqonayaa ya ma noqonaye ayuu noqonayaa waxaana laga soo qaatay dhawaqaasi sida ingiriisiga hurrah interjectionka oo kale hurrah oo kale pa oo kale ta oo kale hadduu ku dhegsado ja ya da fa ra sa sha dha ga gha fa ga ka la ma na nga wa ha ya nya intaasi haddii ya-da intaan la soo gaarin midkood uu ku xigsado dhanka bidix uu ka maro macnaheedu waxa ay noqonaysaa in ay tahay shagal ama shaqal ya-daas maadaama xarafka kan shagal inyaal oo loola jeedo shaqal uyaal ay ula baxeen dadka luuqadda tan ee lahjadda mayga iskale qoraalkeedu
ayaa haddana waxaa loo sameeyey xarafka kan ee macnihii dhan walba gale ee kiyaawa ingiriiska ama flexibleka ah oo loodloodsamaya waxaa loo bixiyey magac loo yaqaano shoranshoor oo markaasi loola jeedo flexible ama midka loodloodsamaya ama loodloodsame waxaa loo bixiyey loodloodsame waa xaraf marna noqonaya shibane marna noqonaya shaqal tusaale haddaan ka bixinno xarafka kan markuu shaqal yahay waxaa ka mid ah dhawaqa mayga tusaale ahaan maga oo kale marka la leeyahay maga fiiri maga waxaa loo qoraa mayga ma a gha maxaa u dambeeya dhawaqaasi male lahjadda maxaaga male laakiin lahjadda mayga way u gaar tahay dhawaqaas marka si baahida dhawaqaasi loo baahan yahay xaraf loogu helo ayay noqotay in ya-dan marna loo isticmaalo ya ahaan marna loo isticmaalo shaqal loona bixiyey shoranshoor loodloodsame haddaba ardayay waxaan filaynaa in aad maanta fahamteen alifmayga labadiisa qaybood ee kale ah shible iyo shagal haddaba waxaanu turxaan bixinaynaa dib aan ugu laabanaynaa alifmayga khaasatan shiblaha in uu macnihii u dhan yahay dhawaqa guud ee qoraallada kala duwan ee lahjadda mayga iyo in kale iyo xarfaha qaar ku jira halka laga soo qaatay haddaannu soo qaadanno alifmaygu ba sida afmaxaagu uu u labalaabmo afmaxaagu ama lahjadda maxaagu qoraalkeedu waxaa jira xarfo labalaabmo wax la yidhaahdo oo loo akhriyo manalagaraad baa 7 weeye 7daas oo ah ma oo 2 ah la oo 2 ah waa marka emphasize lagu samaynayo adkayn macnihii wixii labalaabmaya 7daasaa macnihii ku jira lahjadda maxaaga qoraalkeeda ma la 2 dheh na 3 dheh ga 4 dheh da waa ma 1 dheh na 2 dheh la 3 dheh ga 4 dheh ra 5 dheh da 6 dheh ba 7 dheh 7daasi xaraf ayaa labalaabmi kara lahjadda maxaaga qoraalkeedu laakiin alifmaygu waa uu ka duwan yahay qoraal ahaan waxaana uu leeyahay 2 qudha oo labalaabma 2 xarfood ama 2 xuruuf oo qudha ayaa labalaabmaya 2daasoo kale ah la iyo ra waxaana tusaale aan u soo qaadan karnaa hillimo oo kale hillimo oo loola jeedo markaasi riyadii iyo arra oo markaasi loola jeedo carro ama ciid okay afmaygu waxa uu leeyahay ba fudud iyo ba culus tusaale ahaan ba'da hadday culus tahay ba'da koobaad ayaa lagu bilaabayaa alifbeetada aad ku soo aragteen ama haddaba idiin muuqanaysaa haddii ba'du ay khafiif tahayna p ayaa loo isticmaalayaa pa oo markaasi laga soo qaatay af ingiriisiga p for pen ta waa caadi ja waa caadi ja ayaa jirta marka labadaasi xaraf ay isu tagaan waa j iyo h markay isu tagaan alifmaygu waxaa weeyaan ja ayaa loo akhriyaa waa dhawaq u gaar ah alifmayga tusaale ahaan jilaan jiliyey
jilaan jiliyey look oo markaasi loola jeedo nuuc ka mid a shimbirta eebe ee ku dhaqan geyga Soomaaliya jab oo kale oo loola jeedo markaasi jab ya way da wacadi faada waxaa laga soo qaatay ingiriisiga the oo kale ama the fa waa uu leeyahay af Soomaaliga xataa dadka lahjada maxaaga ku hadlaya waa ay leeyihiin laakiin waxay ku dabaraan lagu dabaray fartii la qoray 27kii waxaa lagu dabaray hal daa lagu dabaray markay laba laabantana laba daa taasaana keentay in xarfo laba laabma sida da oo kale lagu soo daro lahjada maxaaga qoraalkeedu laakiin si toosa ayay dadka mayga ay u qaateen in tha ay toos u isticmaalaan iyadoon macnihii waxba lagu darin waxna laga dhimin ra ayaa jirta sa waa caadi sha waa caadi dha waa caadi ga waa caadi waxaa jirta gha labadaasi xaraf markay isu tagaan oo g iyo h ah waxaa loo akhriyaa afmayga gha ayaa loo akhriyaa waa gha ma aha gha fa waa caadi ereygaasi waxaa loo akhriyaa q-ga ah dha aa loo akhriyaa afmaygu dha waa dhawaq u gaar ah marka loo eego dha gha maan waa dha tusaale ahaan erey may ah qulo oo kale buraashada weysada lagu qaato ama waxaa ka mid ah gaalo oo kale gaalo qaadiga okay ka la ma na ayaa jira na ayaa loo akhriyaa na'daasi n iyo g markay isu tagaan na ayaa loo soo qaataa waxaana laga soo qaatay ingiriisiga sida morning oo kale subax morning qur-aankana way ku jirtaa oo jannatin lama qori karo lahjada maxaaga qoraal ma leh lama qori karo dhawaq macnihii luuqadda waxaa loo baahan yahay inta badan dhawaqa in ay macnihii qori karto dalka ka jira marka ay common tahay weeye laakiin lahjada maxaaga qoraal ahaan ma leh oo macnihii looma qori karo laakiin mayga waa loo qori karaa waana ay leeyihiin tusaale ahaan haddaanu soo qaadano ting oo kale ting ting tin ting weliba waxaa loola jeedaa tin laakiin tin aa loo qoraa maxaaga ting mayga hadda dhawaaqiisu waa ting ting suu u qoraa marka tin inuu u qoro ku khasbanaanaya hadduu maxaa ku qoraayo laakiin mayga ting ayaa loo qoraa ting waa kaay ngdaasaa lagu qoraa sida aad aragtana waa ta i aya nga ting wa waa caadi ha waa caadi ya waa caadi nya ayaa jirta marka nya'daasi qoraal ahaan waxaa loo soo qaatay ya oo wadata faasiladaasi kore y oo abastrafkaasi wadata geeska wadatay mayga waxaa loo akhriyaa nya ayaa loo akhriyaa waa dhawaq mayga ay macnihii khaas u leeyihiin nya soomaalida marka loo eego xitaa maxaaga dadka qaar marka aanu u soo noqonno maxaaga dadka ku hadlaya ee mudug iyo galguduud aan laga soo qaadan lahjadii dhexe ee laga soo qaato macnihii xamar iyo dadka dega xataa dadaa waxay dhahayaan nyaanyaan rabaa nyaanyada meeqa waaye reer xamarka oo kale nyaanyada meeqa waaye ku leeyihiin ha yeeshee haddana nyaanyo looma qoro ee yaanyo ayaa loo qoraa fiiri waxaa loo qoraa yaanyo ee nyaanyo looma qoro nya looma qoro ee nya'dii ya-a lagu beddelaa yaanyo ayaa loo qoraa marka si loo buuxiyo dhawaqaasi maygana ku badan maxaagana xataa ay ku hadlaan ayaa waxaa la soo qaatay nya ayaa la soo qaatay dhawaq ahaan waxaa dhawaaqa xarafka maahan dhawaq ahaan waxaa laga soo qaaday dhawaqa talyaaniga tusaale ahaan lavanyo oo kale sabuuradda combanyi saaxiibada oo kale combanyi waxaa loo qoraa talyaaniga c o m p haye combanyo
a haye g n n soomaan i ñi'daasi marka macnihii dhawaq ahaana loo soo qaatay ña'da talyaaniga looga soo qaatay qoraalkiina waxaa laga dhigay y abastraf wadata markaasi mayga wuxuu noqonayaa nya ayuu noqonayaa waxaan u malaynayaa in la fahmay kareedoo ke aveta kabiti waxaan u malaynayaa inaad fahamteen waxaa jira marka sidoo kale oo jira xarfo ka maqan maxaaga alif mayga oo macnihii aan ku bays garaysnayn dhawaqa dadka ku hadla lahjadooda waxaa ka mid a sida xa ayaa ka mid a xa ma lahan alif mayga dadka ku hadla maygana xa ma ku hadlaan ee ha ay ku hadlaan beddelkeeda za kuma jirto sidaa iyo si la mid ahna ca lagama helo a'maanaya waa ca qur-aanka way ku jirtaa carabiga way ku jirtaa maxaaga way ku jirtaa dhawaq ahaan laakiin dhawaaqa dadka macnihii mayga ku hadlaa ca qur-aan ahaan way u bartaan carabi ahaan way u bartaan laakiin dhawaq ahaan uma lahan tusaaleahaan cabdi ma yidhaahdaan ee cabdi ay dhahaan okay xaawo ma dhahaane haawo ay dhahaan zamzam ma dhahaane samsam ay dhahaan iyagu marka sidaasi darteed ayaa xarfahaasi ay uga maqan yihiin maadaama dhawaqii dadka luuqadda iska lahaa uusan ka mid ahayn xarfahaasi laakiin diiniyan qur-aanka wixii ku jiraa diiniyana loo baranayaa carabi ahaana loo baranayaa taasi waxaa weeye waa luuqad kale marka luuqad laga hadlayo arday maantay casharkeennii ugu horreeyey alifmay shible iyo shaqal shible iyo shagal halkaasi ha inoo joogo kani waa casharkii koowaad casharka kan ee alifmay wuxuu noo noqon doonaa mid taxano ah si la mid ah sida luuqadaha kaleba ay taxano noogu noqon doonaan maxaa iyo may labadaba waxaanu xusuusinaynaa in af soomaaligu dadka soomaaliyeed in af soomaaliga mid qura uu yahay shanta gees ee meel walba ay degan yihiin ogaadana lahjado fara badan baa jira lahjadaha fara badan oo jira haddana waxaa jira in macnihii lahjad macnihii laba lahjadood lagu qiimeeyo soomaalida inay ku hadasho oo ah may iyo maxaatiri laakiin lahjado fara badan ayaa jira laakiin haddaad fiiriso haddana lahjadaha sida hadda afka garaha iyo jiidada iyo tunida iyo marka loo fiiriyo qoraal ahaan haddii maanta lasoo qaato oo la yidhaahdo war qorta dhawaaqiina oo ku qora maxaa ama may maxaa laguma qori karo never si kasta u tijaabi nin kasta oo meel walba aad joogto laakiin waxaa lagu qori karaa may lahjadan mayga hadda fartan aad u jeedid ayaa lagu qori karaa waayo fartatan waxaa lagu qori karaa dhawaqyada kala duwan ee soomaalida ay ku hadasho lahjadaha kala duwan oo dhan waa lagu qori karaa bilaa shaki waa wax la tijaabiye weeye maahan waxaanu iska leenna sidaasi darteed marka waanu qiimaynaynaa lahjad walba ee soomaaliyeed oo jidha laakiin waxaanu sidoo kale xusuusinaynaa in soomaalidu 1970kii ka hor farba aysan lahayn far maba lahaynba dadka waqooyi joogana waxay wax ku baran jireen af ingiriisi ay iskoolada ku dhigan jireen dadka koonfurta joogana waxay wax ku baran jireen af talyaani bay iskoolada ku dhigan jireen dadka jabuuti joogaana waxay wax ku dhigan jireen farta loo yaqaano faransiiska waatan hadda 2000 iyo wixii ka dambeeyay loo fasaxay jabuutiyaanka in far soomaaliga ay iskooladoodu macnihii lagu dhigi karo ama ay ka dhigan karaan dadka kenya ku hadlaana sawaaxili iyo ingiriis ba macnihii iskool ahaan ay u dhigtaan ay ku dhigan jireen macnihii maxaaga qoraalkii ka hor dadka etoobiya ay macnihii la deganna sidoo kale macnihii afxaarkaas unbaa lagu jagaynaya qoraal ahaanaan ka hadlaya laakiin hadal ahaan dadku af soomaaliga kii may ku hadlaya iyo kii maxaatiri ku hadlaya labada way macnihii way ku hadlayeen nin walba afkii afku macnihii mid lumaya ma uusan ahayn waana tan hadda keenta odayaashii hore ee talyaaniga ku hadli jiray
macnihii odayaashii hore ee waqtigii gumaysiga la soo shaqeeyey ama ingiriiska kuwii la shaqeeyey ama talyaaniga ama kuwii faransiiska la shaqeeyey waa kuwa faransiisiga iyo af ingiriisi af talyaaniga soo burqanaya marka laba erey ay sheegaan hadalkooda soo dhex gelinaya qoraal ahaanna kii iskuul tagay kaasuu wax kusoo bartay ama talyaani ama ingiriis ama faransiis ama sawaaxili ama amxaar sidaasi darteed ardayay casharkeen halkaas ayuu inoo joogaa waa casharkii koowaad lesson 1 alif may waxaanu inoo xigi doonaa casharada soo socda ee kale sida ay u kala horeeyaan casharka labaad haddii ilaahayga awoodda leh uu nagu simo casharkan casharka ka horreeya haddaanu kala tagnaana ballantayadu waxaa weeye jannatul fardowsa waa anigoo macallin aadan oo idiin soo gudbinaya afafka kala duwan khaasatan maanta afka mayga alif may السلام عليكم فردوس